Soomaaliyay tooso isku tiirsada waxa ay qayb ka ahayd xaflad aad u ballaaran oo lagu taageerayay laguna soo dhaweynayay ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo ka dhacday waqooyiga magaalada tan London. Waxaan filayaa xafladan oo si qurux badan loo soo abaabulay ayaa waxa ka soo qayb galay jaaliyada Soomaaliyeed ee magaalada tan London oo ay ka muuqanaysay hididiilo cusub iyo waliba dawladnimo jacayl waxa ayna dadku siteen sawirada ra'iisul wasaaraha iyadoo sidoo kalena dadka qaarkood ay ku soo labisteen dharka hidaha iyo dhaqanka iyo waliba calanka Soomaaliya waxa halkaasi laga soo jeediyay khudbado kala duwan oo isugu jira talooyin iyo waliba bogaadin oo dhamaantood taabanayay baahida loo qabo isku duubni Soomaali ha noolaato Soomaali ha israacdo waxaan u malaynayaa ninka maanta prime minister Soomaaliya looga dhigo inuu loo duceeyo mooyee wax badan oo kale oo la sheegi karaa ma ay jiraan waxaan u rajaynayaa isaga iyo kooxda uu magacaabi doono iyo madaxweynaha iyo baarlamaankuna ku wada shaqeeya ee ummadan xilka maanta la saaray ka soo baxa inay noqdaan waxaa nasiib wanaag ah in maanta uu inoo dhisan yahay xafiiskii jaaliyadda oo dhammaystiran lagana uuleysan yahay dalkan UK xafiiskan waxaa inoo soo geliyey oo waqti badan geliyey ugana mahadcelinaynaa wasiirka qurbajoogta iyo maalgashiga mudane Cabdullaahi Axmed Aasaari aan ka codsanay ra'iisul prime minister cusub ee Soomaaliyeed inuu nagala soo qayb galo munaasabadan qaaliga ah ayaan u gudbinay wuuna naga aqbalay taas aan idinku bishaareynaa haddana khadka uu ku jira waa idinku wareejinaa hadda waxay taagan tahay kullu waqti jooga wax wada qabtay oo ay ka mid tahay ummadda Soomaaliyeed inay walaalihiin ra'iisul wasaare Farmaajo ayaa si weyn uga hadlay guud ahaanba arrimaha Soomaaliya gaar ahaanna arrimaha ammaanka oo badhig u ah arrimaha haadsan horyaala ilaahay ha nooga dhigo mid aan wadankeeni aan ku noqono oo maxaa la dhahaa oo maxay ahayd kulligeena aan ku wada noqono qurbaha dhibaatooyinka nagu haysta aan kaga noqono cirro horta waa maasan tahay adiga iyo guud ahaan teamka Universal runtii aad baan ka mahadinayaa sida quruxda badan aad u soo bandhigteen hawshan oo noo qayb qaateen waa arrin dabcan dhib badan ciyaar maahan 500 oo qof meel ay timid in la hoos garayo wax sahal maahan balse waan ka dabaalay runtii ma taqaan si quruxda u dhacday aad baan ugu faraxsan runtii markii sheego aad baan ugu faraxsan horta shacabka ayaga naga dalbaday inaan sameeyno xafladda ayaga u soo baxay xafladda waxaan u dhacay si aad iyo aad u qurux badan waan ugu mahad celinaynaa prime ministerka casumaad aan u dirsanay inuu nagala soo qayb galo aniga ku hadlaya magacayga Aar Cali Mire oo ah xubin kamid ah guddiga soo qabanqaabiyay qof kasta oo ka qayb qaatay oo gacan naga siiyay waxaan riyay ugu mahad celinaynaa sida sharafta mudan oo Soomaalnimada ku dheehan tahay oo ay uga soo wada qayb qaateen una wada abaabuleen absolutely tanoo kale wali ma arkin waa 20 sano ka bacdi aad iyo aad baan u faraxsanahay uguna farxay intaas Soomaaliya oo isugu timi ra'iisul wasaaraha cusub aad iyo aad ayaan u taageerayaa halkan taageero wanaagsan iyo farxad ayaan leenahay waana damashadayna ilaahay ka dhigo kii dalkeena iyo dalkeena wax u qabto ilaahay maxluuqan waxaan ka barnaa ninkaan noogu dhigo qeer oo dadka baarlamaanka ku jiraan ay si fiican uga shaqeeyaan ay naga dhaafaan cagajiidka hanaga dhaafaan laaluushka la qaadanayo hadday runka tahay kutaabkii ku dhaarteen dhaartaas wadaan ninkaana lala shaqeeyo inta madaxda Soomaalida ee maanta shaashada ka muuqataba waajib gooniya saaran waxaan rajaynayaa iyakuna inay noqdaan kuwa wada shaqeyn kara wixii ummadda lagu badbaadin lahaana meel uga soo wada jeesan kara mas'uuliyad weyn baa saaran waana u soo ducaynaynaa xafladaha lagu soo dhaweynayo ra'iisul wasaare Farmaajo kuma ay ka kaliya magaalada tan London balse waxa ay ka dhacayaan goobo kala duwan oo kamid ah adduunka waxa isweydiin mudan sidee uu wajihi doonaa xaaladda cakiran ee Soomaaliya wuxuu uga duwanaan doonaa ra'iisul wasaareyaashii ka horeeyay dawladiisuse ma ka badbaadi doontaa khilaafaadkii iyo waliba isqabqabsigii lagu bartay dawladihii ka horeeyay Cabdinaasir Cirro Universal TV North London